tukalaan ka sheekeeyey laakiin tan kale oo berigii aan masar joogay taa iyada waa nowcan maa waxaan odhan karaa berigaas nin fiican baan ahaa waa intaana adduunye iyo mashaakil iyo guur iyo bakti iyo beli iyo waxaan mashaakilkana dhagal intaana gelinahaydoo nin iska yaroo fariido waxaa iska ahaa qur-aanka aad u akhriya usbuuc kasta qur-aanka waa dhammayn jiray igama baq yani intaan ardayga meesha ka ahaa fi kulli usbuuc laazim qur-aanka waa ina dhammeey anigoo xaalad iska fiican ku jiro oo dikrigaygu iska fiican yahay baan waxaan imid aeroboortka qaahira waa 83kii weeye beryahaas dabadeed kutub badan baan intaan iibsaday beri baan nin oo aan daris ahayn oo fiican oo xaajaada leeyahay waa intuu soo maray 300 oo geni isii 300 waa lacag badan waxaan ku gatay kutub fara badan baan ku gatay macrad kutub intaan tagay kolkaas anoo karaatiin kutub wata ayaan imid tigir baan wata meeshii markaan imid miisaanka diyaaraddu waa diyaaradda Somali Airlines waa laakiin kan kontorka jooga waa yar Masriya masaaradda meesha ka shaqeysa waa miisaanku saaray lacag badan baa soo baxday wuxuu yiri lacag fara badan oo aan haynin buu sheegay intaas laga rabo ما هي مركا إنا كل جسي وقاتي أقول كيف والله ما عندي بال أنا قاعد مركا نودر وشينيس يعني وحوا يصير الصومالي مركا ليلا أنا قاعد نو صوفيين يسمي يعني تاسو كذا صومالي زوجته كان صوفي واي أنا قاعد نو صوفيين يسميها واحد يلي يسوي العقد كان وقتي ضد بدن بكو دبتها جاني أنا قال له من وقتي والله ما هي يعني ما عندي فلوس markaasuu ma sida rabtay inaan ku dhoofto haabana wuxuu hadda waa mid yar kutubta aan dhoofin adiga iska joog kutubtaada tigirkaaga oo dhanba kutubtana qaadaysa aan kutubta ku dhoofin adiga iska joog ma yeelayaan waa inaan dhoof hadaba wuxuu yiri adigu dhoofo kutubtan ka tagay karatiintan xagga iska ma yeelayaan kutubtan waa inay la dhoofto marka uu xanaaqay markaa saan ku وتشترط علينا أنا قابل حتى هذا ساسة يدربتها هذا أنا شرط سميع أتحداك بقول أتحداك محن أورن كرنا هذا في الصومالي يا عرو كاسو كله يعني تحدي بان سميني يا بقول هنا هذا الأدي كتبتها وذا دوفي أنا سي الله بيجي نقطة وحال وأنا أتحداك إن أنا كتبتها وذا دوفي أنا تحدي بان لا يمد مالي إلا وإلا بأني كتبتها وأنا وذا دوفي والله إن أنا وحن أجهي يوحي يقدم بي أين الجري لكن إلهي محيو وافجي سقط حي هيو ديارد وحي بحضها لحظة الصبح نما مالهاس تلياني كتب هذا حمر بأسعطة سقط حي هيو كتبتي بميل حاجة إيجا توري باسبور كيجي تجيب كيبان قاتي مساجد كاسك قلي وردي القرآن كاسك أخرجته بينك ولما اسكتوا كلين إله وأنا كتبت وذا الدوفي بان إله وأنا كتبت وذا الدوفي لأن كلا هرد والله ديارد كاونتر كيد ولا حري وقت كيد ولا ماضي ولا حري ضدك ركوب كاه ما جا فريستين أنا واحد يجو أن مجرو ده وحن اسكيمد مساجد كي صلاة الصبح بعتني صلاة الصبح ما تكلم ولا أدمي ولا أقيمي در وحن قبي مركز در كعلماء اسك قبي جبد يعني اسك قبي در كان أزهرتي جبد بن قبي جري عمامد يو قالوا باتري نتوجي صلاة دي اسك توجي صلاة دي مركز عندما صلاة دي كبحي نكي يقول حيجي صفقة فدي وحوها nin ضابط يعني درجة سهلة أو عسكري حد جفر بدن كم مقدار أيوها مركز سوفيري نكي اللي بقى كسعته وأوي يبكي والله يبكي بين يدي الله سبحان الله مركز باسبور كي يتجر كنا ماشي الليل صلاة أن كنت كني إلى ما هضن باسبور كي يتجر كي بوقاضي وحوفيري ديارده ay tahay iyo waqtiga ay maaragtay tahay wuxuu ogaaday in diyaaradda Somali Airlines tahay waqtiga baxayso wuxuu ugu yiri ya akhi sheekh fadilat sheekh barakallahu fiik diyaaradda waqtigeeda waxba nooga dhiman kowde xoogay quraan noo akhri xoogay quraanka noo sii akhri quraan kale noo sii akhri anna waa iska jidbaysnaa
quraankii baan u suway asagina oo hibbo ka sii qaaday ninkii wuxuu noqday mataqaanaa amn almataar wax la yidhaahdaa jira masaaridu amnigooda xoog buu lahaa amn dawla mataarka amnigiisa ninka ugu sarreeyo ahaa yani mataarka dhan isaga ugu sarreeya qof hadli kara male buuba noqdayba markii qur-aanka aan dhammaynay waaba kaxeeyey xafiis kor ugu yaalla oo kuraasi badan taa lagu fariisiyey shaah iyo alaab buu ii dalbay wax yar kadib buu baasaboorkii wuxuu yidhi maxaa u samaysan weyday counterka oo miisaankii waxa u samaysan weyday marka anigu waa ishtako waxaan wallahi waxoogay mushkil ay haysato miisaankii iyo ayaanan maaragtay waxayga si ahaayo marka ma dhammaynayo markii buu telefoon diray yidhi yaa jooga meeshaasoo hebel baa la yidhi u yeera jibu kana soo qabta والله ninkii oo ordaya ayaa la keenay xabeeska soo galay subxaan allah markuu arkay ila wasgaranayna ani isaga taxaddi baa naga dhacay markuu arkaano ninkan waliba ninkan yani ixtiraamayo kursiga shaqada ma fariisanin kursi iga soo horjeedo fariistay markaasaa buskudkii iyo shaahi wixii hor yaala yani madaxda sare baa saa loo yaala mugti markuu arkay ninkii waa iska jaray waa garay isagii oo dhan والله يا شيخ كيف ايوه ساعة البيت ما حاجر مركز شو قبت جوجي نكان محاور اخي يقول ما يوي ليش ما خلصت هذه البركه يا اخي مركز شو يعني على ويسك تمر يسوون وحول هذا دمينا يسي مركز شو باسبوركي تيركي وديبيرو اردو تغو كراتينتيسي كتبتيسي وسو خاري بدن باسكي وديارده كفول لهنا كان هذا markaas waliba canaan dhagta kala raacay weeli waxa waxba ahayn baad hormarinaysaan dadka wanaagsan oo ka tagaysaan ruux subhanallah alazim wallahi inaan raacin meesha iska fadhiyay uu tagay isaga karaatintii uu meesha ku tuuray uu intuu aaday oo ururiyay oo diyaaradii saaray wuxuu ii keenay baasaboorkii iyo boarding passkii markaas waliba intuu ii dhiibay ayuu ii cudur daartay macleesh fadilta sheekh نقرأ له نقرأ ورهيسها شقده إني أحبا إسكب بدني معلش مع شقده إنه بدني سبحان الله كذب لما كرتونه حتى أنت كل ريبتي مركان ديارة سيفوليني نكي وحكويني لما كرتون ما حد ريبته ما حد أساري وحاني وحوجي ميزانكي أسكري بودي وحولي نكان لما فتش كرو كو نكان ديارة صار الباب ده دتك لو فتشوا لما فتش كرو وكو طلبات كتبتن وكعنت عليسك كوضو اسغو يشن قادن كرسيga diyaaradda markuu fariisto la ful diyaaradda markuu fariisto waa agdhig ka soo tag waa isoo wadacayo ninkii madaxda ahayo kuwa marka waxaan xusuustaa Soomaalidii markii hore fariisatay meesha diyaaradda si raacisay qaar ba marka waxay leeyihiin ninkan wasiir awqaaf miya waxa leeyihiin wasiir dambi ducada iska furreyd ilaahay baa iska keen ajiib marka qasada noocaas markaan ka sheekaynayo ani tazkiyata nafsi ugu ma jirto wallahi alazim anu shakhsiyan inta meesha fadhida ina idin kullita ayaan yaqansanahay ana tacbaan ma عندي shay laakiin waxaan jeclahay kulligeen inaan calaaqa la yeelano rabbigeen haddaan rabbigeen calaaqa la yeelano oo ilaahay jeclaano oo ku xidhno oo saacad kaste dikrigiisa aanu laazimno إلهي أمورتنا ونسهلين وحنا قهلا بيانا مجر خصوصا موضوع كسابسا ذكرك هي مداومة ديسا لدائمة في هذه البلاد ودمدان وودن مغفلا وددك دينتي إلهي كفوقيهين وإلهي إلا إلوبي ودلكي يقيده يبوره يوحد نبا وذؤوية يوحي الربان داد إلهي دوشو ذا كحسي الربان إذنك إلهي با إذن كان ما يشان إذن كان ذكري سبضي